السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دعوة ديال مeel kasta dunida dacaladeeda aad naga daawanaysaan halkani waa dhanbalka dunida waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni falanqaynta wararka galabnimo qodobada xiisaha leh barnaamijkeenan galabtaan ku soo qaadan doonana waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray shirweynaha maalgashiga caalamiga ee beeraha dalka Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dawladda federaalka Soomaaliya haddaba ahamiyad nuucee ayuu Soomaaliya u leeyahay shirkaasi warbixin ayaan daawadayaal kaga haynaa qodobada kale xiisaha leh barnaamijkan aan kugu soo qaadan doona waxa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawlad goboleedka Galmudugna maanta waxa ay xukun dil ku riday Farxaan Jaamac Siyaad oo ah askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo horay dil bareer ugu geystay magaalada Dhuusamareeb caasimada dawlad goboleedka Galmudug haddaba xukunkaas iyo sidoo u dhacay ayaan daawadeen isu gudbin doona qodobada kale barnaamijkan galabtaan ku soo qaadan doona waxa qayb ka noqon doona xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta wacdar la yaab leh ku soo bandhigay magaalada Burco ee caasimada gobolka Togdheer dadweynaha fara badan ayaa halkaas ku soo dhaweeyay musharaxa Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi xaaji xasan qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaa barnaamijkan falanqaynta wararka galabnimo soo saarista iyo tabinta waaniga Daara Abshir Xasan fadlan haddii aad ku cusubtahay YouTube kana dhabalka dunida subscribe saar sidoo kale page-keena Facebook Leaderman baraheena bulshada sida X Instagram iyo sidoo kale barteena TikTok oo diyaar garooba daawadayaal qodobadaas oo faahfaahsan oo aan goordhow idin anbaqaado insha Allah وهاك داود يالان كو بلابنا برنامجكنا فلانقيتا wararka galabnimo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafuray shirweynaha maalgashiga caalamiga ee beeraha dalka Soomaaliya shirkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galaya wasaaradaha beeraha ee dawlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale maalgashiyaal caalamiga ujeedka ugu weyn ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ay ka leedahay shirkan isla markaana u soo qaban qaabisay ay ku sheegtay in la dhiiriigeliyo beeraleyda Soomaaliyeed isla markaana sare loo qaado wax soo saarka dalka si markaas looga maarmo cuntooyinka laga soo dhoofiyo dalka dibadiisa wasaaradda beeraha ayaa ayamihii la soo dhaafay waxa ay waday barnaamijyo ay sare ku qaadayso wax soo saarka dalka iyo sidoo kale in la dhiiriigeliyo beeraleyda iyo sida markaas ay u soo saar lahayn cuntooyin ku fiican dalka si markaas looga maarmo waxyaalaha raqiiska ama si dalkeena ka baxa oo wadanka dibadiisa laga soo dhoofiyo shirkan ayaa la filayaa markii la soo gabagabeen laga soo saaro qodobo aad u waaweyn isla markaana anfici doona oo dhiirigelin doona beeraleyda dalka Soomaaliya waatay daawadayaal bal markana haddeen eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa maanta xukun dil ku riday Farxaan Jaamac Siyaad oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliyeed kaas oo horay magaalada Dhuusamareeb caasimada dawlad goboleedka Galmudug ugu dhex dilay wada mooto bajaaj waxaana halkaasi gacanta ku dhigay askarta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliyeed asagoo ugu dambeyn maanta maxkamad la soo saaray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay in xukunkan ay cuskutay kadib markii la soo helay marqaatiyaal fara badan oo markaas goobjoog ka ahaa xilliga markaan askarigan uu dilka geysanayay xukunka maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dawlad goboleedka Galmudug ayaa imaanaya iyadoo bilii la soo dhaafay oo aad u yaraaday dalilka kala duwan ee mooto bajaajleyda Soomaaliyeed ay kala kulmi jireen askarta ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliyeed waxayna tani soo dedejinaysaa in markaasi ay hoos u dhaco isla markaana ay markaasi yaraado dililka kala duwan ee bajaajleyda Soomaaliyeed ay u geystaan askarta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya وهاك داود يلا بل markana hadii aynu magaalada Burco ee caasimada gobolka Togdheer ayaa maanta si weyn waxa lagu soo dhaweeyay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi xaaji xasan dadweyne aad u fara badan isla markaana aan dhig la qabta lahayn ayaa iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Burco ayagoona leeyahay calanka uu markaasi astaanta ku leeyahay xisbiga wadani ayaa markan waxa madani soo aqlabiyada u haysto dhammaan shacbiyada maamulka Soomaaliland asagoona moodin xisbigaasi aqlabiyada kala sii wareegaya xisbiga iminka talada haya ee mujarrad haya Muuse Biixi Cabdi xisbiga wadani ayaa dhowr jeer dowladda noocan ka sameeyay gobolada kala duwan ee maamulka Soomaaliland waxaana moodaa markaan inuu u sii kaansanayo sidii ugu guuleysan lahaa xilka madaxtinimada ee bisha November ee ugu soo aadan laga qaban doono gobolada waqooyi ee dalka xisbiga kulmiye iminka talada haya ayaa moodaa maalin maanta ka dambaysa inuu taageerayaal cusub uu sii luminayo waxaana dad fara badan oo ka tirsan xisbiga kulmiye iminka isugu soo biishubanayaan xisbiga mucaaradka ee wadani ayagoona dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland ay iminka tilmaamayaan in boqolkiiba 90 ay u dhowdaayeen ku guuleyso Cabdiraxmaan Cirro madaxtinimada dalka madaxtinimada maamulka Soomaaliland
intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena falanqaynta wararka galabnimo waxa ay soo saariyay halkan kaga tabinaya aniga Daahir Abshir Xasan fadlan waxa ku xusuusinayaa daawadayaal haddii aad ku cusubtahay YouTube-keena dhambalka dunida inaad subscribe soo saartay sidoo kale page-keena Facebook leader man sidoo kale baraheena bulshada sida X Instagram iyo sidoo kale barteena TikTok tan iyo maalintii bariyaanta ku kulmi doona barnaamij aynkan kana akhiray waxaan kaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh